قال في حادثة الإفك إلهي وحكيري بأن أبورتك بعد ذي أي افتراء الفاحشة فاحشة الله أبورته على عائشة لو أبورته بعد ذي وحكيري رضي الله تعالى عنها لولا جاءوا أهل الإفتره أهل الإفك قل لي ما دينا عليه على ما رموا بها وحق بدأ يكتل المامين بأربعة شهداء أفرقوا مرخاتي أم حيوا لإما وايين فإن لم يأتوا هدي أيسا لا إيمانين بالشهداء مرخاتي ذا أفرتا فأولئك كوا عند الله إلهي أكتسهم الكاذبون وبيانا ليال نسابك الزنا هدي مربى أيسا صور لما يستيرون وحالا سيو حكومها يا حدنا لقرتي ما عيد كلا تولى سارة أيقونا بيانا لقو حكومة أيقانا لحدها يا وشيخ بشير معلم إبراهيم إيلي عالم أقون دركسن أوله فنون تكالدوان دينة إسلامك ومعمولها يمدرسك معد القرباء في مركز الكرماء وهوستغا جماعة الشيخ آدم ديري ودور عصب وفقئة وحانا مانتا وقبقبينيا كتابك أبي شجاعة وكمدة كتبت سلسلة فقه إسلامك حرأي كموقتي جعيلك وقبان برشاد دينة إسلامك أي هالكان كسوغان ودقيسانيا علمك كبرقانيا شاقة warbaahinnadan arrimaha diinta ka shaqeeya ayaa galabta kala qayb galay ardaydan gabagabada kutubkaasi Abu Shujaaca ah al-Caalim al-Allaama Sheikh Bashiir Muallim Ibrahim Iile ayaa gabagabada kutubkaasi iyo hawlaha ay qabatay madrasada inoogu warbixiyay Ilaahi Rabbil Aalamiin kitaabkii waa noo taam noqday at-tadhiib kitaabka la yiraahdo fi adillati matn al-ghaayati wa at-taqrib waxaan filaa daraasada hadda dowradan cusub waa kitaabkii afaraad oo noo ahaa dowradeenan ka socota markaskan ama macahadkan la yiraahdo Macahadul Ghuraba fi Markazil Kurama macahadkan oo loo aasaasay daraasaadka islaamka muhiimadiisuna ay tahay dadka sidii Ilaahay ay ugu xirmi lahaayeen in laga shaqeeyo waxaana iska leh أمان يا أبال وين كل إلهي كبعدي شيخ عبد الرزاق شيخ آدم شيخ عمر شيخ علي أسرع يا أنت بدن فكر كيسة يا هم كيسة يا هوشي سكلها حاتنا روحها أسكيها ما أكتاجيها وأسرع وأنا مركز ودي أرسن إنه صاره جلال كدم إن شاء الله تعالى ضد صاره مثقفين وأقويهنا دراسات الإسلام ككفي عن كوا مادة مهمات كذا إن شاء الله تعالى يجانا لجوين كله أما باع وين كله sida aan rajaynayno waxa baxa funuun kala duwan oo funuunta islaamka ah kuwa ugu muhiimsan iyo wasaa'ilka intaba quraanka ha noqoto iyo culumul quraan xadiiska iyo culumtiisa ha noqoto fiqiga mustanbadka ha noqdo khaasa abra imaamina Shaafici wasaa'ilka oo ay ugu muhiimsan tahay culumul lugha naxwaha sarfiga balaaqada waxa sidoo kale aan ka marrayn culumta aqliyada sida منطقة iyo muqaddimaadka falsafada waxa sidoo kale aan ka marhayn daraasada oo muqarraraadkeeda kamida cilmiga la yiraahdo usulul fiqh min ila insha Allah intii Ilaahay suuragal ka dhigo hadda in doorana hadda kutubta waan soo qaadanay dhowrka sano oo aan joognay baqiyadana Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo taam yeelo dhinaca kale Sheikh Bashiir ayaa baaq ku aadan in bulshada muslimiinta ay bartaan diintooda oo aanay marti ka noqon diinta la wadaagay dhammaan bulshada muslimiinta ee Soomaaliyeed waxa muhiimadu ay tahay adduunyo way ciidan badan tahay oo ayadu dadna kuma yaraadaan dadna uma baahna waxa ciidan yar badana waa aakhiro dadku dad aakhira inay noqdaan oo ihtimaamka ay saaraan Ilaahay xiriirkiisa inay wanaajiyaan si suuragal ay u noqoto adduunkana macna inay ku yeeshaan man arada ad-dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al-aakhirah fa alayhi bil ilmi fa innahu jamaa'ul khayr qofkii adduunyo raba Ilaahay diinkiisa ku dadaalo qofkii aakhira rabana diinka Ilaahay ku dadaalo waxa loo baahan yahay ayay hoos yeelaan hada dadka in badan oo kamidana adduunyo waa ka maqan tahay laakiin waxaad moodaa meesha ay ka baadi goobayaan ama ay u doonayaan inaanay jirinin adduunyo inkastoo qof muumina inuu ku dadaalo ama ihtimaam badan uu siiyo aysan ahayn waxa maaratay sunna nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam ay sanahayn quraanku xaqaradeedii uu tilmaamay nabiguna sidaas uu ku qiimeeyay dhagax waxa loo sheegay xirtay aba yaraatay xaaje kama lahayn waana yaqiinta ummadan islaamka oo u reebay oo inay ku noolaadaan ay tahay waxa marka la isbaraa
وأرادكي آثارتي النبي محمد عليه الصلاة والسلام شيء يسهل لنا أن نطبخنا أمرك إلهي إن برنه رادتي سي رقمدي سي في شؤونه يا حياتي لما وحي كحيرها تاسيس أي صورة قال وقدكتو إن أن نغنى بشر معنا له بني آدمكو waxa uu ku qiimaysan yahay oo xawaa'ijtiisa xaajada ugu culus ay tahay waa cilmiga iyo diinta islaamka barashadiisa raqabaad fara badan oo iska leeyahay laakiin raqabada ugu muhiimsan iyo xaajada ugu muhiimsan oo alxaaja alcaaliya la yiraahdo waa diinta qofkuna diinta inta uu san baran hadii ilaahay u suura geliyo markii uu barto markuu barbar dhigo wuxuu ogaanayaa inuu bani aadam uu san ahayn barashada diinta ka hor muuqaal bani aadam inuu lahaa ee bani aadam uu san lahayn أوصل هاي معنويات كبني آدم نمي صدّن يوحى حولها أوجا فضيلة وحي صواب حي سامركي دين إلهي أوبرثو وحلو دري وحلو ديدي مرك أوجاذو مركاس أيو نغكر عقف معنا لكهر معنا ما يلكره شيء دراد إذا مركب مبدأ أما منهج كماشان الله أساسي أي تهاي ضد بدنه كأف الحان هذا ويجران ومقدمات هذا رقدم به هذا مرتي وضدي كسعدنا ويجران وحن رجينا إن خير بدن إلهي إنه نجوا فجيو أعماشنا إلهي درس وكدقو شيخنا أبال وين إنه إلهي كسيان إلهي ورجينا ونقبرينا طلبنا دينك إلهي إنه كأنفع دكتور توصل وكدقو qaar ka mid ah ardaydii maanta kitaabku u dhamaaday oo aan la hadalnay ayaa inala wadaagay dareenkooda farxadeed oo ku aadan dhameysashada kitaabkaasi maanta u dhamaaday iyagoo sheegay inay sii wadi doonaan barashada cilmiga islaamka oo ah mid waajib ah waxaan ku faraxsanahay kitaabka maanta inoo dhamaaday waxaana mahad balaaran aan u soo jeedinaa sheekheena Sheekh Bashiir ee jannatul firdaws Allah ku abaaliyo abaalkiisa gudi ma karno markastane markii duruusta amba kitaab ku dhamaado farxadaada la soo koobi ma karo aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin waxaan joognaa markaska Ma'hadul Quraba fi markasil Kurama oo ku yaalo degmada Wardhiigley gaar ahaan xirta Sheekh Aadan Dheere bartaas ayuu ku yaalaa macadkaas ayaan joognaa maanta waxaan noo dhamaaday kutubka la yiraahdo التذهيب أما اللي يرهدو أبو شجاع متن أبو شجاع شرح التذهيب كيا نور دمادي waxaan noo dhamaaday maanta kitaabka la yiraahdo التذهيب في أدلة التقريب kitaabka la yiraahdo ayaa noo dhamaaday waa dowriyaal kamid ah oo sheekhu soo dhameeyay oo soo waday ragga qaar waxay marayaan manhaj ay ka gudbeen qaarna waxay marayaan hadda meesha kitaabka galabta noo dhamaaday Allah anagu anfaco sheekh ayaa noo wacdiyay waxaa la soo bilaabay safiinihii oo naqtiin ah iyo durbiyihii iyo reer badiici iyo Abu Shujaac iyo kitaabka sharaad waa kitaabkan iyo manhaj qowmi gudaha Abu Shujaac ka horeeyay marka waxaan ku faraxsanahay ina arday markaan maahin ina wax aqoonin hadda aan arday oo maxshi kar aan nahay anaga dadka qaarkeen xatay inaan dad wax sii gudbino aan akhrino marka sheekheena Sheekh Bashiir Macalin Allah xafido iyo sheekheena Sheekh Cabdirasaaq Sheekh Aadan Sheekh Umar labadooda ayaan ku joognaa madaxooda ilaahayna alla garab galo hawlahooda aan leenahay dadaal diineed oo ah baridda diintooda islaamka ayuu Sheekh Bashiir Mucallim Ibraahim halkan ka wadaa taasi oo ah soo saarista jiil aqoon durugsan u leh diintooda islaamka Xasan Maxamed Samatar Cawke